magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland ayaa maanta si weyn looga xusay xuska dheelminta nabigeena Suubanaaya Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxaana hotel Mansour ee magaalada Hargeysa lagu qabtay munaasabad lagu weyneynayo dheelminta nabigeena Suubanaaya Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee munaasabadan ayaa waxa soo buux dhaafiyay culimaadudiin waxaana sidoo kale ka soo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka golaha wakiilada Somaliland Sheekh Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle Dr. Jaamac Muuse Jaamac iyo marti sharaf kale aad u tiro badan ugu horeyna waxa munaasabadaasi lagu ibafuray Quraanka Kariimka ah الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه أن يرضى يوصل يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون intii ay socotay munaasabadani waxa iyaguna halkaasi hadal ka jeediyay culimaadudiin ay kamid ahaayeen Sheekh Ismaaciil Cali Rooble Sheekh Axmed Nuur Axmed Jimcaale iyo Sheekh Yuusuf Cabdi Hore waxayna ka warameen miisaanka ay xuska maalintan u leedahay ummadda muslimiinta ah إلهي وحوله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إلهي وحوله ذي معبود أيان الزهن للميي أدون كيسا النبي محمد عليه الصلاة والسلام مسجد الحرام كدلميي وكيا لمكة مسجد الأقصى وأرض الفلسطين كيا لأدلميي مسجد كاسو غارر كيسا آن بركيني سي حسيي سي معنوية بالله بركيي سي أو آن أتسنو ملكوت كي يا إلهي أكتي سويحي أو كلها يا أمدن محمدية دو أبال مرينتا امتحان كان مركي أي كبحدو إلهي أكتي سأي كل هذا هاي سي النبي لنا الله صوت دالع سيو رحمن الزيلعي كتاب كان شاطبيها يا إسكال هورتا إمام الشاطبي لبعتها ستطلبة العلم جانا تاريخ أيام بالآخرين تاريخ وحوين وحو موضوع يكون كلا تجين والقراءة والمطالعة شيخ الشاطبي ليرادو علماء الصومالي هذا الله ده بدأ يكون بينه يعني وحوي مراكيب ما هذا اسمرين مجال اللي نقول شانيجا مجالس نين شيخة أو صوفيا أو عمر شريعة اللي قبل هذا نقاشون فنانة ده مقول أبيهد نوحوها وحول البشر عبد القادر وكمرة تاريخ النبي محمد عليه الصلاة والسلام واساس وكله مشايخ البلاد أما علماء التقوى وعلماء أهل الطرق والدين وحويان إن أينو تذكر صوحك كاران ما هو وين علماء اللي هي مرجع يملاء النقدان كسر شيء وين لهلا وهؤلاء العلماء علماءنا وكواس وحنشأ هاي ليرين ما هذا الك آيات بدن إيو قرآن بدن إيو حديث بدن إيو تاريخ إنه كورنا علماء إنه قفل أو كهذا الشيء أو كورنتي لكن waxaan uga jeedaa oo waxa weeyaan atadkira inaynu xusno dhanka kale Dr. Jaamac Muuse Jaamac oo lagu soo marti qaaday munaasabadani ayaa sheegay in faragelin shisheeye lagu hayo dhaxalkii ummadda Soomaaliyeed hadii ay noqoto mid dhaqan iyo mid diineedba waxaanu shacabka ugu baaqayn la ururiyo isla markaasina la xafido dhaxalkii ay ka tageen culimaadudiinka Soomaalidu waxaanu ka waramay muhiimadda ay leedahay xuska maalinta dheelminta nabigeena Suubanaaya Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ummadani way jirtay aqoon bay lahayd badda berbera xeebta meelaha ay naga soo gashay ilaa inta herer ku xidhan halkay aqoonteena diin iyo maadi bay naga soo gashay bay ahayd nasiib baynu yeelanay inaanaynu ku kulmin oo maanta marka la yiraahdo ummadda halkan ku nool waa ummad muslim ahayd waxa la yiraahdaa waa ummad waligeedna muslim ahayd macnaa diintu marbay u la timi oo maaha ay mar dambe ay soo gaadhay maxay noogu timi waxay noogu timi ilaahay meesha mandaqada uu nadajiyay culimadeennii bilowday inay hoggaan ka qabtaan ee isku dayay aqoonteenu maanta ku soconay intay u dadaaleen inay soo gaadhsiiyaan hadii la nabciyo taas maanta wax fool xun noogu sheego hadii la nabciyo oo wajahada kale la noo tuso hadii la noogu sheego inay ka dambayso aqoomaha kale waa meelaha la iska baabiinayo ugu dambeynna waxa munaasabadaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka golaha wakiilada Somaliland Sheekh Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle waxaanu ka waramay muhiimadda ay leedahay xuska dheelminta nabigeena Suubanaaya Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee البخيل الحديث النبي في الرسول
البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي رسولك صلى الله عليه وسلم يعني إن أي دعي دونان إن أي جري دونان بخلو نوع عاسى أو حتى قعنت وحبينت بخيل كان نقد دونتا مركو صلي وصلا أودي بي قعنتين بخيل كان نقد دونتا مرنا ما هي وحب كوب بخيل إنه مركو مجعين النبي قام مغلق كصلي البخيل والنبي كتب بخيلكم مركوا معي بخيلكم بعيد من الناس بعيد من الله بعيد من الجنة قريب من النار والعياذ بالله بخيل لك الله يدي والنبي كتب المامي إنه دتك كفوق ياهي ودتك مجعل بخيلك إنه إلهي كفوق ياهي إنه جنة كفوق ياهي إنه النار تودو ياهي سخيقنا ديقسيقا إلهي دي وحي وبري علمي ديبا وحي ومالو ديبا ديقسيقنا قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة بعيد من النار محمد داق إسماعيل حاشي تلفزيون كبولشو مقالة هرقيسة